السلام عليكم muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa bot cusub oo ku soo kordhay cryptocurrency-yada oo ka shaqeyn doona botkan waa bot aad u casri ah sidaan groupka Telegram-ka idinku soo sheegayba dhowr maalmood ka hor maanta waxaan rabnaa inaan ku fargarayno ama aynu faahfaahin guud ka bixino botkan cusub iyo waxa uu yahay botkan waxa la yiraahdaa EasyBot waa bot casri ah oo ka shaqeyn doona cryptocurrency-yada dadka cryptocurrency la socday dhawaanihii ugu dambeeyay waxa soo baxay jiray bots cusub ama robotyo cryptocurrency-da ku trade gareeya si robotkii hore u naqaanay ee loo yaqaanay royalty botkanna waa bot kale oo casri ah oo royalty-na waxyaabo badan kaga wanaagsan oo isna ku soo kordhay saaxadda sidaan aaminsanahay waa bot wax badan ka tari doona trading-kii cryptocurrency-yada oo wax badan ku soo kordhin doona dadka cryptocurrency-da ganacsada haddii aynu slides-kooda guud marno marka koobaad magacooda ayay soo bandhigayaan EasyBot baa loo yaqaanaa waxaa halahaysa oo ah crypto made easy haddii aynu hoos soconno waxaan information-da guud ay soo bixiyeen halkan waxay ku xusayaan waxyaabihii ku kalifay in botkan la sameeyo ama ay soo ikhtiraacaan ninka botkan aasaasay ama CEO ka ah waa nin lagu magacaabo Maxamed Cali 2021 waxa uu xariintiisu tahayna magaalada Dubai oo kan sawirkiisu CEO-ga halkan waxay ku soo bandhigayaan mission-kooda waxaana oo akhri kartaan values-kooda hoos hadaynu soconno halkan waxay ku soo bandhigayaan EasyBot waxay invest ku sameeysaa cryptocurrency marka waxyaabahan oo dhan ay qabtaan constantly profitable returns faa'iidooyin bay soo celiyaan joogto ah waxyaabo badan bay halkan ku sheegayaan passive income baad samaysan kartaa withdrawga waa anytime baad ku samayn kartaa experience looma baahna qofkii experience aan lahayn waxa uu la mid yahay sidoo qof experience leh way u siman yihiin barnaamijkooda dhan wuxuu ku tacalluqaa easy one click strategy ka dooranaysa kadibna waa isaga ku trade garanaya wax khibrad oo dheeraad ah uma baahna waxyaabaha botkan casriga ah uu khaas ka leeyahay waxa weeye in boqolkiiba 50 hadii suuqu uu crash ku dhaco ama uu drop ku dhaco inuu wali isagu faa'iido samayn karo 50% plus hadii suuqan uu crash ka dhaco suuqa cryptocurrency wala yaqaana waa suuq volatile aad ah volatile waxaan ka wadnaa يعني وسوق دقائق بدن coins ka waxa laga yaabaa in maalmo gudahood uu aad isu bedelo ama uu hoos u daato ama uu sare u kaco marka hadii crash ku yimaado suuqan markasta waxa laga filan karaa inuu crash ku yimaado hadii crash ku yimaado suuqan boqolkiiba 50 wax ka badan xataa haduu ku yimaado faa'iido wali uu sameeyaa marka wuxuu ka duwan yahay royalty hadii uu suuqu drop aad u badan ama crash ku dhaco isagu faa'iido uu joojinayay laakiin kan markasta faa'iido uu sameeyaa halkan kala hadaan eegno bitcoin oo kale 2022 bishii November drop aad u badan baa ku soo dhacay waxay ka soo raacday 70,000 wax ku dhow ilaa iyo waxay soo gaartay 33,000 ay soo gaadhay marka dropka inta leeg royalty waxyaabaha imika hawada uu kaga baxayo ee uu faa'iido la sameyn waayay marka EasyBot isagu markasta suuqa haduu drop ku dhaco iyo hadii uu faa'iido u sameeyaa marka waxyaabaha la isku halayn karo botkan uu leeyahay tusaalahaan hadii aan kala eegno cryptocurrency-yada ama coins ku dhamaantood waa volatile aad bay isu bedelaan hadii aan halkan eegno cryptocurrency halkii ugu sareysay ay gaadhay waxay ahayd 70,000 wax yar bay u jirsatay oo November 2022 halkii ugu horeysay ay gaadhayna 2013 halkii ugu horeysay ay gaadhay waxay ahayd $67 marka caalamku ma dhacdo wax qiimahoodu inta in la isku bedeli karo muddo 8 sano ama 7 sano ah qiimahoodu ilaa inta isbedeli karo boqolkiiba intaas oo kun uu isbedeli karo marka suuqani waa volatile waxa laga yaabaa Ethereum inay sanadkan bilowgiisa ay $1 ka yaray marka 3,000 ay sanadkan gaadhay marka waxyaabahaas oo dhan kuma dhici karto EasyBot oo isagu wuxuu sameynayaa markasta faa'iido uu sameeyaa hadii aan hoos socono waxyaabaha uu khaas ka leeyahay kaliya faa'iido uu sameeyo sidoo kale waxa uu compound ku sameynayaa lacagihii aad faa'iiday oo kugu daraya lacag kugu trade garanay marka royalty muu lahayn isagu oo lacagtii hore aad kugu taalay exchange-gaaga ama account-ka crypto ku jirtay uu kugu trade garanay laakiin kan faa'iidada uu sameeyo iyo lacagtii kugu jirtay iyo waxba wuxuu kugu daraya asset-kaaga guud aad leedahay sidoo kale robotkani wuxuu kaga duwan yahay robodada kale ma jirto lacag aad isaga dhiganaysid deposit garanaysid kaliya waad iibsanaysaa kadibna waxa uu ku sameynayaa uu ku shaqeynayaa waxaad ku xidhaysaa API-gaaga exchange-gaaga aad leedahay ama crypto account-kaaga markaad ku xigtid isagana fee-gi looga baahnaa bixinka waa free buu kugu shaqeyn karaa sidoo kale fee buu kugu shaqeyn karaa lacag baad bixin kartaa way kala duwan yihiin
laakiin freega haddaad macal ku xidhatid wuu kugu taraargalinaya marka isaga wax lacag aad dhiganaysid ma jirto exchange-gaaga lacagta kugu jiraysa isagoo aad iibsanaysaa kadibna exchange-gaaga API-giisa aad ku xidhaysaa saas kugu taraargalinaya maalin walba EasyBot dadka isticmaalaya advanced-ka ah ama khibradda leh wax way ka bedeli karaan marka haddaad khibrad leedahay istiraatiijiyadda kugu habboon ayaad isticmaali kartaa sida day trading ama scalping-ka sida loo bilaabo EasyBot waa easy marka kaliya oo start trading with EasyBot for free baad ku isticmaali kartaa kadibna waxaad ku xidhaysaa crypto account-kaaga ama exchange-gaaga sida Binance ama Coinbase labadaas ay imka aqbalaan start trading ma daba sameeyay maalin kasta saas kugu shaqeynaya 7 cisho week oo dhan 24 saacadood oo dhan buu ku shaqeynaya sidoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay small accounts iyo large accounts labadaba isku sii ugu taragalaya labadaas faa'iido keena sidoo kale waxaad ku bilaabi kartaa free baad ku bilaabi kartaa haddii halkan soo digno waa package-yada ay bixiyaan marka koobaad waa free waxyaabaha uu ku sameeyo laba coin buu ku taragalay karaa hal exchange ama hal account ayaa lagu ogol yahay kan labaad waa advanced package 250 aad bixinaysaa wali isaga lama launching gareyn ama lama soo shaacin laakiin uu ku jira waxyaabaha bishan dhamaadkeeda la soo shaacin doono wuxuu kugu taragalanayaa 10 coin sidoo kale wuxuu kugu taragalayn karaa laba exchange oo aad leedahay laba API address baad ku xiran kartaa waxyaabahan kale oo dheeraad waxaad samaysan kartaa team baad dhisan kartaa oo aad isna faa'iidooyin ka heli kartid kan saddexaad VIP package baa loo yaqaanaa oo 999 software-ku wuxuu qaadanayaa faa'iido kasta oo ku sameeyo 20% wuxuu ku taragalanayaa all coins-ka la heli karo iyagoo ay ogol yihiin dhamaantood ku taragalanayaa sidoo kale ilaa 5 exchange ayaad ku xiran kartaa waxyaabaha kale oo khaas ka leeyahay waxa la mid ah adeegyo khaas oo dheeraadna uu wataa sidoo kale team waad dhisan kartaa oo isna faa'iidooyin ka samaysan kartaa kan advanced-ka isaga kan advanced-ka software-ka ku taragalaya 20% ayuu qaadanaya lacagtii ku taragalay faa'iido ku soo saaray sidoo kale kan free-ga isagana wuxuu qaadanaya 30% lacagtii lagu taragalay ama lagu shaqeeyay xagan oo saadin u sii degno oo team building-ka waxyaabo aad ugu wanaagsan yahay haddii aad team builder tahay ama aad xagga marketka aad ugu horeyso fursad weyn ku yahay ama haddii aad account ka iibsatay ama aad subscription bixisayba dad kale wada sii wadaagi kartaa kadibna halkaas passive income ayaa samayn kartaa way kala duwan yihiin siyaabaha teamkaaga faa'iidooyinka uga heli kartid faa'iidooyinka ka heli kartid qaar waxa weeye lacagta subscription-ka ama account ama ku iibsanayo bot-ka faa'iidaad ku leedahay sidoo kale lacagaha maalintii loogu shaqeeyo ee percentage ku sii leedahay waa bot transparent ah haddii aynu halkan eegno YouTube-ka ninkani waa ninka madaxda ka ah bot-ka xalfadani ama munaasabadii lagu shaacinayay bot-kooda bot-kan waxa maamulo waa 5 nin markaas si transparent ah ama la isku halayn karo ayay halkan soo fadhiyaan kadibna su'aalo iyo wixii ay ka wada jawaabayaan 5 nin baa madax ka ah EasyBot ninka dhexeena waa Maxamed Cali oo ninka maamula ama asaasaha EasyBot weeyaan su'aalaha ay uga jawaabayaan si live ah waa waxyaabaha transparent-ga soo jiitay waxa uu isku dayayaa inuu qanciyo qof kasta iyo su'aasha uu qabo waa daawan kartaa muuqaalkan waliba la soo yareeyay mid 4 saacadood soconaya ayuu ahaa haddii aynu intaa kaga gudubno sala isu diiwaan geliyo haddii aynu gallo Telegram-keena markaad soo gashid ee aad link ka heshid linka click baad siinaysaa halkan buu ku keenayaa marka magacaaga full baad ku qoraysaa kan haddii aynu Cali Cabdi oo kale ka dhigno email-kaagana email-ka aad gashanaysaa password-kana password adag ayaad samaysanaysaa halkan wadankaaga ku buuxinaysaa Soomaaliya halkan number-kaaga supervisor-kaaga waa iska saxaysaa kadibna registration ayaad ku dhufsanaysaa marka registration dhahdid halkan buu ku keenayaa website-kani waa website-ka registration-ka oo kaliya website-kooda kaliya wali lama login gareyn marka link-yadaadana halkan baad ku helaysaa dad team dhisanaysa sidoo kale halkan baad ku dhufsanaysaa meeshan ay ku qoran tahay affiliate center marka tahay halka ay ku qoran tahay my referral link ayaad ku sii dhufsanaysaa kasi dooranaysaa kadibna waad haysataa waad copy garaysatay link-kaagii kadibna cidda aad doontid ayaad u diri kartaa company-gan wali adeegyadiisa qaar baa dhiman kaliya waxa laga baahan yahay inaad adeega free-ga aad adigu iska sii diiwaan gelisid isniinta soo socota ayaa la bilaabi doonaa trading-ka dadkii iibsaday VIP-ga muuqaalkan sharaxaad guud buu ahaa muuqaalo kale oo badan ayaynu ka soo samayn doonaa marka adigu waxa laga baahan yahay inaad iska sii diiwaan gelisid oo aad registration-ka free-ga aad sii qaadatid oo aad package-ka free-ga aad sii qaadatid YouTube-keena ayaynu ku soo bandhigi doonaa casharad xanaa oo ka hadlaya EasyBot linka la iska diiwaan gelinaya description-ka idin dhigayaa ama sidoo kale Telegram-yada ka heli doontaan marka waxa la ka baahan yahay in qof waliba team dhisto si uu isaguna passive income u sii helo si aad teamkaaga uga mid noqotidna waa link-kaas ka diiwaan gelisid kadibna aduna aad team kale oo aad u ballaaran aad sii dhisan kartid intaasaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkan muuqaalo kale oo waa kaga hadli doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum.